السلام عليكم. maanta waxaan ka hadli doonaa buug muhiim u ah noloshaada qof walba oo akhriyana waxyaabo fara badan oo cilmi ah oo ka faa'iidi karo. Buuggan waa midkii kuu sahli lahaa wadadii aad ku noqon lahayd qof mufakir ah. Qoraaga buuggan qoray markii uu qiyaxay macnaha mufakir wuxuu ku sheegay waa qof leh wax ka badan hal takhasus sida aan arki doonno. Sidoo kale qodobo fara badan sheekooyin fara badan iyo tusaalooyin fara badan ayaan arki doonaa inta aan ka hadli doonno barnaamijkeena ku saabsan buuggan aadka u faa'iido badan qof walbaana haddii uu dhuxo macnihiisana waxyaabo fara badan uu ka faa'iidi karo. Kusoo dhawaada barnaamijka oo dhammaystiran. buuggan sida magaciisa ka muuqataba wuxuu ka hadlayaa sida loo sameyn lahaa qof mufakir ah, balse wuxuu qoraagu ka sii afeeftay in cidna uusan dhowr buug uu akhriyo mufakir ku noqonayn. Hase ahaatee buuggan uu noqon karayo mid ka ifin lahaa wadada lagu noqon lahaa. ugu horreyn si loo fahmo mufakir waxa uu yahay ayuu qeexay mufakir erayo ka agdhow macno ahaan sida mutaqasis, caalim, muslix, daayica, musaqaf iyo faylisuuf. isagoo xusay erayo aad u soo dhaweyn kara macnaha mufakir inay yihiin caalim, musaqaf iyo faylisuuf. hase ahaatee uu ka sareeyo musaqafka kana hooseeyo faylisuufka. waxay ahaataba waxaa laga dhex bixi karaa qeexitaanka qoraagu in mufakirku yahay qof aqoon hal takhasus dhaafsiisan leh, dareemayana mas-uuliyad inay ka saaran tahay ummaddiisa, una taagan caddaynta dhibaatooyinka taagan ama imaan kara iyo ka shaqaynta xal u helideeda. intaa kadib wuxuu tilmaamay astaamaha uu leeyahay mufakirka, waxaana ka mid ah tilmaamahaas: 1. qof aqoonta jecel, helitaanka shay cusubna ku farxa, baaritaankana joogteeya. 2. qof dareemaya mas-uuliyadda, warkiisana aad uga fiirsado maadaama dad ku saamoobaya ay jiraan ama si qaldan loo dhigi karo. 3. qof ka madax bannaan xargaha, deegaanka ku xeerarsan, waa qof sanduuq bannaankiisa wax ka arka, ururka iyo qoladu ka tirsan yahay qaladna kuma raaco. 4. xusuusta, xifdin iskuma hadlayo, aadna xoog uma saaro, taa beddelkeeda fahamka ayuu xoogga saaraa. qofka si guud u eega arrimaha bulshadiisa, si ka duwan sida caalimku ka eego arrimaha dhanka takhasuska, uuna iskulahooda arrimo aad u qoryar sida takhasuska kaaba keenayso. qofka had iyo jeer baara xaqiiqda iskuna daya muujinteeda. qoraagu wuxuu si gaara u tilmaamay waxa uu ku soocan yahay mufakirka muslimka ah, isagoo sheegay mufakirnimada ka hor inuu yahay qof muslim ah, ayna tahay in dadkiisa iyo afkaartiisa aysan ka hor imaan ijmaaca iyo nusuusta sugan, dalaaladeeduna ay caddahay. wuxuu sheegay in maskaxda Allah subxaanahu wa tacaala inagu rakibay ay koobayso wax ku dhow 100 bilyan oo unug ah, unug walbana oo 10 kun xiriir ah la sameeyo unugyada kale. intaa wuxuu ku daray mar walba uu qofku ku leeliyo ama ku mashquuliyo maskaxdiisa fikir tolmoon inuu korayso tirada xiriirka la sameynaya unugyada maskaxda iyo isagideedaba, taana ay keenayso qofku inuu in badan wax dhuuxo ama fahmo. qiimaha maskaxdu waxa ay ku kordhaysaa ka faa'iideysigeeda. maruu ka hadlayay fikradda loo baahan yahay ayuu isku dayay siyaabo kala duwan inuu u qeexo, sida in fikirku yahay ka guuridda xaalad taagan loona guuro xaalad kale, isagoo caddeeyanaya waxa uu la jeeda. ayuu yidhi, si aan uga gudubno dhibaato jirta waa in aan ka guurnaa waxa hadda taagan ee la og yahay, loona guuraa waxa oolinana aqoon, taa oo ku imaan karaysa fikrid. wuxuu tusaale u soo qaatay markaynu fakarayno inaynu la mid nahay sida qof caanaha ka soo saaraya subag, in fikirku yahay la imaanshaha modelis, sida marka aynu rabno inaan ogaano dugsiga wanaagsan waxa uu yahay, ayna tahay inaynu dhisno model aynu ku qorayno tilmaamaha uu leeyahay dugsiga wanaagsan. in fikirku yahay su'aal isweydiin, tusaale annagoo isweydiina maxaa inta badan muslimiinta fuqare ka dhigay, annagoo haysan nidaam dhaqaale kii ugu fiicnaa, kheyraad badanna aan haysanaa. isweydiinta ku jirta su'aalaha noocan oo kale ah ayaa ah inaynu kugu dhalinayso fikir ka horseedi kara aqoon tiro badan inaad soo ogaato. in fikirku yahay ka tallaabid xaalad taagan loona gudbo xaalad ka wanaagsan. waxaa dhici karta mararka qaar in dhibaato jirto aad nala timaado xal, balse xalkaasi uu yahay mid aan aad u habbooneyn ama lacagta ka bixaysa ay badan tahay. markaan oo kale waxaa looga gudbi karaa fikir wax ku ool ah. qoraagu wuxuu arrinkaa tusaale u soo qaatay 2 warshadood oo Jabaan laga leeyahay, sameynayana saabuunka. waxaa dhacday inay isku qasmeen saabuunadii saabuunka ka buuxa iyo kuwii fuqarada ahaa. warshadii waxay keentay qalab X-ray ah oo la dhigay halkay ka soo baxayaan sanduuqyada si loo ogaado sanduuqa ay wax ku jiraan iyo midka aysan wax ku jirin, ayagoo shaqaalaha qaatay arrinkan. halka shirkadda kale oo tan hore ka yareed dhibkan oo kale qabsaday ay la yimaadeen marwaxado elektaroonig ah laguna juustay awood ku habboon culayska sanduuqa fuqarada ah, lana dhigay halkay ka soo baxayaan sanduuqyada, taa oo ka yeeshay in si sahlan ama si fudud kii fuqarada ahaa meesha laga rido. intaa waxaa dheereed in qoraagu sheegay
in habfikirka iyo luuqadda ay xiriir ka dhexeeyaan, isagoo raaciyay in afkaarta aynu soo bandhigayno ay tahay intay inoo suuragelisay afka aan adeegsanayno. sidaa daraaddeed mufakirka waxaa laga rabaa inuu daneeyo barashada afkiisa haddii ahaan lahayd suugaanteeda iyo naxwaheeda. dhanka kale wuxuu tilmaamay in mufakirku ka fikir duwan yahay bulshada badankeed. tusaale waxaa dhici karta dadka intooda badan inay dhahaan reer galbeedka ayaa inoo tashtay oo dhibkan ku jirna inagu sababay ina daciifinaya, balse mufakirku wuxuu ugu horreyn aaminsan yahay in dhibaatada annaga inagu timid, gaar ahaan tabadaradeenna iyo wixii la mid ah. markaan oo kale kaalinta mufakirku waa ka qayb qaadashada hagidda garaadka bulshadiisa, isagoo u ifinaya in furfurnaana la yimaado lagana faa'iidaysto khibradaha iyo taariikhaha ummadaha kale. qoraagu waxau kaloo ka hadlay kobcinta hal abuurka, isagoo tilmaamay in aadanuhu yahay noolo hal abuur leh, balse hal abuurka uusan la mid ahayn cabqarinimada dadka. waxa uu hal abuur u baahan karayo towfiiq rabi ka gadaal ayaa ah tababar, diyaarsaarid, dadaal, dareen mas-uuliyadnimo iyo tadxiya, yacni wax hurid sida waqti iyo maal iyo wixii la mid ah. hal abuurnimadu wuxuu ku qiixay inay tahay la imaanshaha wax cusub ama gaaridda natiijo aan horey loo ogeyn. haddaba hal abuurnimadu waxay noqon kartaa adigoo soo kordhiya afkaar cusub ama macluumaad horey u jira wax ku soo kordhiya. sidaa daraaddeed joogteen hal abuur la imaanshaha waa mid ka mid ah astaamaha mufakirka. balse waxaa ugu horreyn loo baahan yahay in mufakirku iska leexiyo caqabadaha ka hor istaagi kara hal abuurnimadiisa, sida liidashada kalsoonida nafta, ku degdegidda caqbalidda afkaarta, sabar la-aan, iska dabagelidda dadka kale. qoraagu wuxuu wax ka tilmaamay waxyaabaha ku gaarsiin kara hal abuurka. waxyaabahaas waxaa ka mid ayuu yidhi: jiritaanka sabab ku riixaysa. sababta ugu fiican uguna sareysa ee mufakirka muslimka ah riixda waa raalli ahaanshaha alla subxaanahu watacaala. marka uu bulshadiisa u adeegayo waa inuu rajeeyaa abaalmarinta rabbi, maskaxdana ku hayaataa. diyarsaaridda iyo danayn waa inaad danayso shayga aad rabto inaad la timaado, adigoo wax ka akhrinaya waxyaabaha laga qoray ama la xiriiraya, ka qaybgelaya kalsooyin la xiriira, wax ka weydiinaya dadka ku takhasusay, xadidaya waxa aad dhab ahaan roobto, wixii kugu soo dhaca diiwaangelinaya iyo wixii la mid ah. ogaanshaha in majaalkaagu waasac yahay. tani macnaheedu waxa weeye in qof walba majaalkiisu wax ku soo kordhiyo. aqoonta oo si gaar ah loola macaamilo. qofka markay faa'iido cilmi ah soo marto waa inuu isweydiiyaa sidee ayaan uga faa'iidaysan karaa. waa inaan lagu kaaftoomin manhajka waxbarashadeed, taa beddelkeeda la dallaco waxyaabaha tixraaca ama kaabidba u noqon kara, lana socdo wixii hal abuur iyo ikhtirac ah ee ku soo kordhay manhajkan. intaa waxaa soo raacaya kaaga dhowaanshaha dadka hal abuurka leh ama jecel, iyo in aad la dhaylsan fikradaha yaryar. Titor Bakar wuxuu tilmaamay in mufakirka looga baahan yahay habfikir naqdiineed. naqdiin markaynu maqalno waxaa maskaxdeena badankan ku soo dhacda inuu noqonayo uun mid taban, adigoo sheegaya ceebaha liita, dhaliilayana. balse xaqiiqdu taa way ka duwan tahay. naqdiintu waxa weeye sida qoraaguba tilmaamay qiimeynta shay, macluumaad, afkaar iyo wixii la mid ah, adigoo kala soocaya wixii wanaagsan oo sax ah, waxa aan wanaagsanayna qalad ku tilmaamaya. tani waxaa soo hoosgelaya in la dhiirigeliyo waxyaabaha wanaagsan. intaa waxaa raacda in qoraagu soo bandhigay waxyaabo keeni kara aas-aasidda caqliyad naqdiineed, waxaana ka mid ah dareemidda mas-uuliyad. wuxuu tilmaamay in haddii allah subxaanahu watacaala ku siiyo nimcada cilmiga, in lagaga baahan yahay in aad ku shukriso. hababka looga mahadnaqo ay tahay in aad daaha ka rogto waxyaabaha qallocsan ee bulshada haysta, iyo in la dhiirigeliyo muuqaalada wanaagsan. oraahda soo socota ayaa aad u ifinaysa qodobkan. waxaa laga soo guuriyey Martin Luther King oraahdiisa: kaliya mas-uulka ma tihid waxaad dhahayso, ee waxaad sidoo kale mas-uul ka tahay waxaadan odhan, taa oo ay laga maarmaan ahayd inaad dhahdo. haddaba si aan u dareenno mas-uuliyad, waxaa ugu horreyn loo baahan yahay nafta oo laga run sheego. fikirka isweydiinta. waxyaabaha aad akhrinayso ama aad arkayso isweydii in ay la ekaan karayso dhibnimadeeda iyo waaqicnimadeeda. ugu dambeyn, mufakirku waxaa la gudboon inuu ku dadaalo hubsashada
iyo inuusan goyn arrin u baahan ka joogsasho. Allaha ka abaalmariyo qoraaga buuggan kheyr badan aqoontu inoo soo bandhigay, innagana Rabbi ha inaga anfaco, nagana yeelo kuwii jidka toosan ku sugnaada, ummadoodana wax u tara. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.